بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وبعد نوحل يصدر دار نوحا وفرون ما إسحاسوسين الله هو اللي إسحاسوسيه ذكر الله سبحانه وتعالى waxaan isleeyahay waa cibaadaadka hadda yaraaday dadku salaadihii waa soo roonaanayaan cibaadooyinkii arkaanta ah waa soo fiicnaanayaan oo dadku in badan hadda wuu soo jeedaa laakiin cibaadaadkaan isleeyahay mala weli may xoogaysan waxaa ka mid a ilaahay xuskiisa subxaanahu wa tacaala waa cibaado qur-aanka mala dhowr boqol oo aayadood ku soo aroortay axaadiista nabiga calayhi salaatu wasalaamna waxaanan tiradooda hayni ku soo aroortay waa cibaado aan wakti iyo xilli iyo qaab iyo weyso iyo meel iyo waxba toona ku xidhnayn waa cibaado qofku uu samayn karo fi kulli axyaanihi hadduu weyso qabayo haddaanu weyso qabin hadduu sii seexanayo hadduu soo toosayo hadduu suuqa marayo hadduu shaqadiisa haysto waa cibaado meel kasta lagu samayn karo cibaadooyinka kale inta badan xad bay leeyihin waktiyo la sameeyo iyo in laga sameeyo cibaadadani xadna ma leh ilahi wuxuu leeya ya ayuha aladiina aamanuu dkuru llaha dikran kathiira war kuwa iimaanka laga helayo ilaahay waxaa xustaan xus tiro badan baa ilahay yidhi dikran kathiira waa cibaado layna yidhi xataa cibaadaadka kale markaad dhammaysataan ha ka tegina faidaa qadaytum asalaata fadkuru llah salaad baad ka baxda salaadda haddaad dhammaysataan baa la yidhi ilaahay xusa xajka aayaad badan baa ku soo aroray oo leeya ilaahay xusa maanta o dhan baad carafo taagnayd oo ilaahay baryaysay cinda almashcari alxaraam markaad timaado ilaahay xus baa lagu leeyay waxaa cibaadaad la sameeyo o dhan inta badan waa jihaad gashay yaa ayuha aladiina aamanuu idaa laqiitum fi'atan fadkuru llaha haddaad dareer gashaan baa la yidhi colo la kulantaan fahbutuu wadkuru llaha katiira lacalakum tuflixuun ilaahay xusa in badan ilaahay xusa waxaa mudantiin inaad guulaysataan waa cibaado bay culammadu yidhaahdaan wax kasta saad u ah wax kasta xal u ah nabiyullaahi muusa iyo nabiyullaahi haaruun markii ilaahay diray ee fircoon oo daaqiyo weyna iyo ciidamadiisi iyo wixiisii oo dhan haysta loo diray nabi muuse cabsu ka muujiyey ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu yihi idhab anta wa akhuuka walaa taniya fi dikri warka kale o dhan dhaaf adiga iyo walaalkaa taga ha ka noogina ha ka daalin un aniga xuskayga baa ilaha yidhi zaad iyo xoog waxa idin ah oo idinku filan inaydan aniga ilaabin walaa tanaya fi dikri baa ilaha ku yidhi waxaad tidhaahdaa aniga xuskayga ha ka ilaabin waa cibaado ilaahay ku tilmaamayo musiibada iyo dhibtu markay dhacdo haddaad badsato in ilaahay faraj ku siinayo ilaahay nebi yuunus markii badu liqday ee xuudku sii liqday ilaahay muxuu yidhi falowlaa annahu kana min almusabixiin lalabita fii batnihi ilaa yowma yubcahuun haddaanu ka mid ahaan lahayn kuwii tasbiixsan jiray baa ilaahay yidhi meeshu ku waari lahaa yani bitasbiixaatihi ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala farjka ugu sameeyey waa nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam markii la yidhi dacwada la jahri ee gaaladii ka hor timid fastac bimaa tu'maru waacrad can lmushrikiin inaa kafaynaaka almustahziin aladiin ilaahay wuxuu tilmaamay waxaa lagu amray ku dhawaaqo sheeg ana kaaga filaanaya baa ilaahay yidhi kuwa mustahziinta kuwa kugu jeesjeesaya ee ilaahay maciisa keyrkii la caabudaya laakiin
dee ma fududa waxaad qiyaasta qof bini aadam oo dunidoo dhan ka hortegaya inagoo mujtamac dhana oo muslim tiro badana oo muslim kaloo tiro badan inaga sii dambeeyo iyanu leenahay environmentka baa dhib badan oo waa waajihi kari weyn nabi maxamed isagoo keliya la yidhi adduunkaba ka hortag dabeetana ilaahay wuxuu yihi qofka bini aadamkaa dee markaa dhibta iyo mashaakilku ku bato cidhiiduu dareemaya ilaahay baa wuxuu leeya walaqad naclamu annaka yadiiqu sadruk waa ognahay baa ilaahay leeyay in laabta ku cidhiidhiyoomi doonto afxumada iyo hadalka iyo waxa lagugu waramayo dee waxaad ka garan kartaa adiga haddii inta adeerka adigoo dad kale war ilaahay raac haddii adeerkaa ku dabagalo yidhahda kan yarana u adeero waa beenti waxba ma sheegaya dhegaysanina maxaad yeeli lahay meeshaad istaagtaba adeerkaa ubaaba ku daba taagan wuxuu sheegayaana waxa weeya waxba kama jiraan wuxuu sheegaye iska taga nabi maxamed adeerkii baa dabagalay calayhi salaatu wasalaam abulahab baa daba socdoo leh wuxuu sheegaya waxba kama jiraan ka dhegaysanina kan yarana adeero ahay ilaahay markaa wuxuu leeya walaqad naclamu annaka yadiiqu sadruk bima yaquuluun waogna in laabta ku cidhiidhiyoomi doonto waxay kugula hadlayaan daraaddood maxay samee baa la yidhi marka maxaa kuu xala ilahay wuxuu ku yidhi subxaanahu wa tacaala fasabbix bixamdi rabbik wakun min asaajidiin wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin ilahay u tasbiixso adigoo ku marayo ku dheehaya tasbiixdaada mahadnaqa allena raacinaya subxaana allahi wa bixamdihida badso inta sujuudana ka mid noqo salaadaa iyo wad baa la yidhi tasbiixaadkaasi iyadaa farajku kuugu jiraay waxay culammadu yidhahdaan diiqi nafsi kasta uu qofku dareemo laabta hadday ku cidhiidhiyoonto shaakilka adduun hadduu kugu tiro bato wardigaaga badi inagu marka mashaakilku kugu bato maxaa madaxaaga kusoo dhaca artalow yaad u tagtaa dabeetana waxaad xisaabisaa reerihii iyo dadkii iyo asxaabtii iyo yaad la xidhiidha bal hebelna u tag hebelna telefoon u dir ciddaana bal waxaa dheh maxaa tala iyo kharash iyo wardhirta bay haysatee bal wax igala qabto waxaa layna barayaa marka mashaakilku kugu bato ilaahay ku xidhan rabu samaawaati walard ilaaha cirka iyo dhulkaba abuuray adiga ku abuuray dunida iskale isaga xidhiidhkiisa badi saa daraaddeed ba nabi maxamed waxaa lagu leeyay calayhi salaatu wasalaam markaad cidhiidhiyoontee warkooda kugu tiro bato fasabbix bixamdi rabbika wakun min asaajidiin ilaahay tasbiixdiisa badi adigoo mahadnaqiisa ku dheehaya inta sujuudana ka mid noqo waxa uu nabigu ina barayaa adduunka mashaakilkiisa inay xel kartay adduunka mashaakilkiisa iyo dhibtiisa inuu xel ka yahay ilaa xad uu nabigu gaadhsiiyey salliga nabiga haddaad badsato calayhi salaatu wasalaam idan yukfa hamukuu nabigu leeyay murugadaba waa laga qaadaya marka dunida kugu soo cidhiirto haddaad inta halkaas ka fadhiisato salligaa nabiga wadid murugada waa kaa tegaysaa buu nabigu leeyay warwarka wuu kaa kacaya aakhirana waa sidoo kale aakhirana waad ku liimaanaysaa nabigu muxuu ku tilmaamaya toddobadii carshi raxmaanka harsanaya maalinta qiyaamuhu waa maalin kadeed badan intaan janniya naarba la gaadhin maalintan baa ka kadeed badan maalin yarna maaha waa 50,000 sannadood baa la yidhi 50,000 years oo dadka la kala xukumayo wixii aadam dhalay oo dhamay taagan yihiin iyo wixii jiniyeysiba aha oo qof walba maxkamadda rabbi la hortaagayo idan waa muddo aada u dheer waa muddo cadceedu dhowdahay oo aad dhididayso wixii dembigaagu leegyahay waa muddo dadku rafaadsan yihin marka intaan janno iyo naar la aadin halkan baa kadeeda qiyaamuhu waa kadeed kale kadeedkaa dad baa jira ilaahay ka badbaadiyo nabigu wuxuu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam maalinta kadeedkaasi jiro dad carshu raxmaan iyagu iska harsanayo oo aan dhibtan qabin baa jira dadka ayaa ka mid ah warajulun dakara allaha fafaadat cayn warajulun dakara allaha khaaliyan fafaadat caynah waxaa ka mida buu nabigu yidhi mid ilaahay xusay isagoo aan cidiba la joogin keligii ah intuu ilaahay xusay ilmeeyey baa uu nabigu leeya calayhi salaatu wasalaam kaasi wuxuu ka mid yahay kuwa maxay maalinta tan badbaadaya innaga waxaa inugu tiro badan xuska bini aadamka
markaad soo toosno isu nimaadno maxaynu ka bilownaa war bal waran hebel xaguu ka dhaca isa badanna waa xan waxaynu ku xusaynaa kii hebel ha waxan buu sameeyey caynkan bay sameeyey wala hebelaya saamba yeeshay xan uu yeeshay ama waad wadaa adigu ama waad dhegaysanaysaa maraad tv ka dhegaysato iyo maraad raadiyo ka dhegaysato iyo maraad nadka ka gasho iyo maraad saaxiibadaas u tagtaan oo adigu aad akhrido warbaad raadinaysaa wuxuun baad wadaa waxay ahayd inaynu ilaahay xuskiisa badino intaynu makhluuqaadka ku mashquulsannahay inaynu khalqiga warkiisa yaraysanno oo badsanno ilaahay subxaanahu wa tacaala xuskiisa si awgeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamaya fadkuruunii adkurkum washkuruu lii walaa takfuruun wari xusa anaa idin xusaya baa ilaahay leeyahy aniga i xusa anaa idin xusaya kadikrikum aabaa'akum aw ashadda dikraa baa aayad kale ilaahay tilmaamay warse aabbayaashiin iyo dadkan u xusaysaan kale si ka kulul ilaahay u xusa ayuha alaxiba ilaahay xuskiisa marka la ilaabo qur-aanku wuxuu ku tilmaamayaa adna in ilaahay dantaada iyo naftaada ku ilowsiinayo walaa takunuu kaaladiina nasuu llaha faansaahum anfusahum ulaa'ika hum lfaasiquun baa ilahay yidhi walaa takunuu kaaladiina nasuu llaha faansaahum anfusahum waar ha noqonina kuwii ilaahay ilaabay dabeetana ilaahay naftooda ilowsiiyey baa laleeyahy kuwii ilaahay ilaabay ee dabeetana naftooda iyo dantooda la ilowsiiyey ee faasiqiinta ku biiray war kuwa ha ka mid noqonina ilaahay wuxuu inoo tilmaamaya subxaanahu wa tacaala inaynu ka durugno wax allaaliya wixii ilaahay ina ilowsiinaya wax allaaliya wixii ilaahay ina ilowsiinaya xataa gurigii aynu ka warramaynay ilahay wuxuu leeya ya ayuha aladiina aamanuu laa tulhikum amwaalukum walaa awlaadukum can dikri illah laa tulhikum alha waa mashquuliye weeyaan waryay idinka mashquulinin caruurta iyo reerka iyo xaafaddu yay kaa mashquulinin can dikri illah ilahay xuskiisa yay kaa mashquulinin baa ilahay leeya subxaana wa tacaala waxaa qur-aanku inoo tilmaamaya war meelahan aan lagu haynin ilaahay dikrigiisa ee warka kale lagu hayo habadsanin nabi maxamed baa ilahay leeya walaa tutic man agfalnaa qalbahu can dikrina waatabaca hawaahu wa kaana amruhu furuda ilahay muxuu yihi wasbir maca aladiina yadcuuna maca allah sabir oo la joog kuwa maxay ilahay kuwa xusaya la joog baa la yidhi kuwa naftu ha la joogto oo walaa tutic man agfalnaa qalbahu can dikrina waatabaca hawaahu wa kaana amruhu furuda ha raacin kuwa ilaabay ilahay dikrigiisa kuwa waxba ha ku darsanin inagu naftu marka aan tababarkaasi loo samaynin meelaha ilaahay lagu xusayo meelahana waktigoodu wuu la tiro bataa waa markaan aad layliyamin meelaha kalena waktigeedu wuu kula yaraadaa maanta waxaad leedahay masaajidkii saacad baan fadhiyay saacaddaas way ku tirsanta laakiin 3 saacadood haddaad tv-ga daawanaysay ama 3 aad joogtay waxaa la yidhahdaa fadhi kudarka ama maqaaxida joogtay wax weyn uma aragtid idan this 3 hours kulama buura shaqadii baa ka imo xoogaa waxaan soo maray maqaaxidaad leedahay laakiin 3 saacadood 2 saacadood baad soo fadhiday kulama buura haddaad laakiin markaad shaqada ka timaado masaajidka nusa saaca fadhida waad sheegaysaa waa markii aad shaqada kasoo baxaysid iska yaranayso masaajidka cabaar fadhiya baad cabaarkaaga waa nusa saaca ama 40 daqiiqaad masaajidka 40kaas way tirsan yihiin waa tilmaamaysaa yani waxaa ka muuqda nafteenna inaan layli wax waliba naftu in lagu layliyaabay u baahan tahay in lagu layliyo naftu waxay barato waxa ugu yarba ha noqdo haddaad casarkii koob shaaha cabi jirto ood galabta cabi weydo in wax weyn ku dhaafeen baad moodaysa waayo naftaad ku layliday waktiga inay koobka shaaha cabto naftu waxay caadaysato hore ugama fuuqdo waxay caadaysato hore ugama fuuqdo wuxuun baa lagaga fujiyaa in la rabeeyo la kobciyo walidaalika baa waxaa nafteenna dhib ku aba meelaha ilaahay lagu xusayo ama inaad ilaahay xustaa in waktigeeduna kula tiro bato
waad ku xisaabtanta maanta 20 daqiiqa qur-aanka akrinay laakiin waxa malhiyaadka ah ee dunida laysku ilowsiyo entertainmentska wax iska ahina inaanu xad yeelanin waa laga yaabaa inaad tidhahda naftu way u baahan tahay dee markasta lama hayn karaya يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم وحين يقولوا وادر فاملي وحكى لك كاري حولها يا عرورت يا كوكري يا كمشغول من بالي إلهي ذكريس إنت كواسي كمشغوليان ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون بالله كواسا خساري بالكورن كوي كمشغوليان وحن حرية عرورت وراهين وحن تريبا كوشرين والله يا عرورتين بابا سلادة ما دبك وجرتين وحن دنيبك وجرين هداكو مشغول السو حينو بغنى مركا عرب كينو إنو تبابرنا يقول حدا عرب كاو يكزول إنو كقويانا هذا إلهي حسكيس هدو عرب كبرتو مركا دنبا نوشو وفضو ذاتا واسكا عادي قال انت ضلطين سبحان الله سكتنا هذا الحمد لله لا اله الا الله الله اكبر لا حول ولا قوه الا بالله استغفر الله واريا كوبا وان عليس بدنين ودبكو اهين وقف لي بس رين كرايو هذا القران حفظ السنه ان القران كاغا اسكا اخرسته ايها الاحبه عليك كلمه اذا دردارك وحويان والبني ادم كحسكي سو حنون وذنبي وعدب إلهي حسكيسنا وخير وأجر تتكتم به تتكبر واحد مقلن تصبح وبدعية وكنا تصبحين وطوري وردقنا وطوري وردقنا طوري لا تصبح حاجة سيسي دمرك تصبحي وطوري وردقي وطوري وحوره وطوري وحوا وردي انت يرى صلاة دمرك وكبحوا هديمه ويرى فردي سبحان الله وينادم انت انك بدن عدت ما سميها لانه انت يرى صلاتك وحريرسان waxaad moodaa inta ugu badan ee dadku sameeyeen normalka ah inay noqotay haddiiba aanu degdegaynin intaana mararba laga degdegaa haddii aanu degdegaynin wardiga koowaad aynu samayno markaa salaada la tukado intaa yar ka damaysa yaalaasuda weliba intaasina inta ugu badan le waxaa la sameeyaa maalinta aad masaajidka ku tukato guriga markaad ku tukato masaajid baa lala laabtaa saasay u badan tahay hadday salaada guriga iyo meelaha noqoto sunnana ma jiro inta badan wardiguna ma jiree marka 4 ragcadood la tukado ma la laabaayo laga kaca waa markaad masaajidka iyo meelahan cibaadaadka uun joogto baa laga yaabaa inaad intaana samayso aniga dardaarankayga markaa waxa weeyaan dhibaatooyinka inagu xeeran waa badan yihiin dhibaatooyinka inagu xeeran waa badan yihiin maadaama dhibta inagu xeeran ay tiro badan tahay tamarteennuna waa yartay iyo itaalkeenna iyo caqligeenna iyo awoodeenna dhaqaale waa yartay waxay ahayd waxa ugu badan ee aan taageersanaa inuu alla noqdo subxaana wa tacaala ilaahay dikrigiisa iyo baryadiisa iyo ku-xidhnaantiisu inay noqoto waxaynu ku rajaynayno haddii aayaadkeenu akhriyayna waxaa ka mid ahaa aabahood baa ahaa maxay saalix oo carruurta ilaahay ugu ilaaliyay haddii inagu ugu yaraan dikrigeenna iyo wardigeenna iyo cibaadadeenna iyo alla barigeenna malaa u xoogganaan lahaa ilaahay reeraana waa inoo fudaydin lahaa mashaakilkan kale ayna haystaan wax badan baa nolosha inoo fududaan lahaa laakiin waxa weeyaan inana hawlgab baynu noqonnay miidaan khatarana waa joognaa inana shaqooyinkii oo dhan hawlgab baynu ka noqonnay meel adagina waynu joognaa waxaana rasmiya qofka muslimkii meelaha cidhiidhigaa markuu joogo in alla ku-xidhnaankiisu ay tiro badato oo ilaahay siduu ugu xidhan yahay ay xoogganaato dee kelmad kooban baa laygu yidhi dheh waxaan u doortuun inay noqoto war ilaahay xuskiisaa si aan badin oo wakti kuma xidhne markaad toosto nusuusta nebi maxamed ka soo aroortay haddaad aragto dadku waxay ku odhanayaan waan maxaatiraynay ama kan baanu samaynay ama kan baanu samaynay warintii nebigu samaynayba maynaan samaynay in dheeraada goor baynu isla gaadhay inta inan ka warrabin inta dheeraadka ah
nabigu markuu soo tooso waxbuu akhriyi jiray, gelinka hore waxbuu akhriyi jiray, gelinka dambe waxbuu akhriyi jiray, musqusha markuu galo waxbuu akhriyi jiray, markuu soo baxo waxbuu akhriyi jiray, masaajidka markuu galo waxbuu akhriyi jiray, suuqa markuu galo waxbuu akhriyi jiray. waxaasoo dhan waa adkaar soo arooray oo wada tawxiid iyo tasbiix iyo istikfaar iyo wax lamid ah. iyagoo iska urursan bay kitaabkan yara xusnulmuslimka la ydhaha jeebka lagu ridanayo iminka moobiladaabuu de ku jira isagoo sidiisiiya. xataa kuwa rasmiga haddaad wada qaybi kari weyda kuwana taqaano badso. subxaan allah iyo alxamdu lilah iyo laa ilaha illa allah iyo allahu akbar iyo laa xawla walaa quwata ila billah, kuwa mid walba waxa ku soo arooray nusuus ajarkiisa iyo wanaagiisa iyo waxqabadkiisa tilmaamaya. waxoo dhan markaynu isku daro waa inaynu ilaahay subxaana wa tacaala carabkeennuna uu ku jiro, qalbigeennana uu ku jiro. ilaahay inaynan marnaba haafil ka noqonin, oo gafladu waa dhib, waa waxa qalbigana dila, noloshana ay ku lunto. hiya algafla. qur-aankuna in badan badan buu masalati algafla ka warramaya. waxa haafil laga noqdana dee ilaahay iyo aakhira iyo kuwaasaa ugu xun. kelmadeedu markaa waxay kusoo koobantay ilaahay wuxuuna leeyahy wadkuru llaha kathiiran lacalakum tuflixuun. in badan ilaahay xusa, war waa liibaanaysaan baa ilaahay leeyahy, waa liibaanaysaane in badan ilaahay xusa. sala allahu calaa muxamedin wala ali saxbi wasalam.